sheegi doonaa jawaabaha imtixaankii national examka 2020 May ama June la galay. qaybta koowaad circle the letter of the correct answer. gabageliya ereyga saxda ah ama gabageli jawaabta saxda ah. su-aasha koowaad structural and functional unit aasaaska ama halbeega shaqada iyo sidoo kale qaab dhismeedka nervous systemka habdhiska dareemoodka. jawaabta saxda waxay noqon doontaa a oo neurons ah unug dareemeedyada ayaa sidaas ah. ayaga waxaa lagu qeexaa structural and functional unit of nervous system. su-aasha labaad a substance responsible for skin color is referred to as. waxa mas-uulka ka ah midabsiinta maqaarka waxaa waa leeyahay c oo melanin ah. su-aasha saddexaad which of the following parties qeybahan soo socda oo skeletal systemka ah habdhiska qalfoofta ah protectis difaaca spinal cordka. jawaabta saxda waxay noqonaysaa d oo vertebral column ah. su-aasha afraad the type of sugar nooca sakor that is found taasoo laga helo in ribonucleic acid ama RNA-da wax loo soo gaabiyo laga helo. jawaabta saxda waxay noqonaysaa midda b ku jirta oo ribose ah. su-aasha kale shanaad if a tall beer plant haddii geed dhireed dheer is crossed with la weydaariyo a short beer plant geed digireed gaaban the phenotypical ratio phenotype ahaan saamiga will be wuxuu noqon doonaa waxa marka lagu dhahayo phenotype waxaa waaye muuqaalka ay soo yeelan karaan waaye marka wuxuu noqonaa one tall to short ayuu noqonaa one tall and cafan 3 to 1 tall to short ayuu noqonaa macnaha waa saddex ka hal oo wuxuu noqonaa tall iyo short ah. su-aasha lixaad the two main functions labada shaqo ee ugu waaweyn of a human ear ee bini aadamka dhegtooda ay qabato waxaa waaye hearing maqalka and balance oo b ku jirto p oo hearing and balance ah. su-aasha toddobaad look at the figure below fiiri sawirkan hoose and then describe the type of gene mutation isbedelka ku imaanaya fiiri waa ujeednaa meesha e aa isbedeshay g aa isku bedeshay meesha g ahda e aa isku bedeshay sidaas darteed jawaabta saxda waxay noqon doontaa a oo inversion ah qalab wuu qalibma macnaha. su-aasha sideedaad nucleotideda of each strand ee xarag walba of DNA molecule ee qurubta DNA-da are binding together waxaa si wada jir isugu haayo waxa la yidhaahdo p. jawaabta saxda waxay ku jirtaa b waa phosphodiester bond dabarka isku haaya nucleotideda xargaha DNA-da waxaa waaye phosphodiester bond waaye. su-aasha sagaalaad waxaa la yidhi the branch of biology laanta ka tirsan biologyga taasoo relations la xiriirta the study of interactions barashada ama daraasaynta isla falgalka bidin u dhexeeya living organisms noolayaasha and their environment iyo deegaankooda waxaa la yidhahdaa a oo jawaabta saxda ku jirto waa ecology. su-aasha tobanaad cali got cerebral injury cali waxaa soo gaara leeyahay dhaawac cerebramka ku yimid due to the car accident waxaana sababay shil gaariyeed. what are the effects waa maxay saameynada that he is most likely to experience macnaha inta badan fikradda khibradda uu yeelan doono maxaa waaye dhaawaca oo saameyn uu yeelan karo qiyaas marka la sameeyo. jawaabtu waxay noqon doontaa c oo ah loss of body balance and posture wuxuu lumin doonaa qofkaas balansiga ama isku dheelitirka iyo postureka uu lumin doonaa booska taagnaanshaha booska. su-aasha 11aad psychological inability awood darrada maskixiyanka ah of muscle ee muruqa cafwan physiological inability awood darrada shaqo of muscle ee muruqa to contract inuu isjiito resulted of ATP taasoo ka dhalanayso ATP depletion inay yaraato ATP-da steroids waxaa lagu qeexaa ama la dhihi karaa eri ahaan muscle fatigue muruqa daal ayaa la dhihi karaa. su-aasha 12aad technique aimed to correct qalabka lagu saxo in qalabka loo isticmaalo in lagu saxo muted genes hidaha qaldamay kaasoo sababi kara human disease wuxuu noqon doonaa b oo gene therapy ah b oo gene therapy ah. su-aasha 13aad which one of the following kuwaan soo socda midkee ayaa set of terms is mismatched ah qayb dhan oo isku aadan oo haddana oo mismatched waxaa waaye si qaldan isku aadan. jawaab saxda waxay noqon doontaa wrist and bifid joint oo si qaldan isugu aadan. su-aasha 14aad if the sequence haddii tixanaha of AGC is a part of DNA uu yahay qayb ka mid ah DNA-da what is the complementary codon
waa maxay ka dhanka dhammaystiraha of messenger RNA-ga wuxuu noqon doonaa jawaabta saxda ah u c iyo g sababtoo ah markaan joogno DNA strand markaan joogno adenine wuxuu isku bedelaa uracil marka DNA strand joogno sidoo kale guaninka wuxuu isku bedelaa cytosine cytosinkana wuxuu isku bedelaa guanin oo messenger RNA markay noqonayaan su-aasha 15aad the neuron unug dareemeedka in diaphragm sawirka hoose diaphragm below ee sawirka hoose represents wuxuu matalaa oo u taagan yahay waa multipolar neuron waaye waa unug dareemeed faracyo badan leh waaye multipolar ah waa a jawaab saxda ah su-aasha 16aad hormoneska daadkuwaasoo work u shaqeeya together si wada jira in pairs laba weliba to regulate si saxaan the level of critical substance shayada gaarka are referred to as waxaa lagu qeexaa ayagana inay yihiin antagonistic hormones hormoonada lidkiis ku ah jawaab saxda waa c antagonistic hormones hormoonada lidkiis ku ah ayaa la yidhahdaa su-aasha 17aad the building block dhismaha of nucleic acidska DNA-da and RNA-da is waxaa waaye nucleotide waaye DNA iyo RNA dhismahooda waxay ka dhisan yihiin waxaa waaye la yidhahdaa nucleotides waaye jawaabta saxda waa d oo nucleotide ah su-aasha 18aad the increasing siyaadida concentration ribnaanta of toxic substance ee shayada sunta ah in organism noolaha ay ku badanayso astrophic level weliba heerka quudasho ayadoo marayaan increase in food chain waxay ku ziyaadaa food chainka or ama food webka shabakada cuntada is described as waxaa loo qeexaa ayadana biological magnification ala biological magnification waa jawaab saxda ee oo biological magnification ah su-aasha 19aad an enzyme dheecaanka that cuts kaasoo jira DNA or ama genes ama hidaha into fragments jabjab looga dhiganayo serumtaas waxaa lagu qeexaa restriction lahaa enzymekaas waxaa la jeedaa restriction enzymes lahaa su-aasha 20aad the breeding beerida of two closely related cows ee laba sac aad iyo aad iskula xiriira to increase si loo kordhiyo milk productionkooda caana soo saaridooda is said to be waxaan dhihi karnaa markii beeridaas oo kale marka la sameeyo waxaan dhihi karnaa inbreeding jawaab saxda waa a oo inbreeding ah waa 20kii su-aal ee goobagelinta waxaa noo haray qaybta labaad iyo qaybta saddexaad